السلام عليكم. معلومات ku saabsan marinbiyoodada adduunka ugu muhiimsan iyo magacyadooda. waxaa jira kanaalo ama marinbiyoodyo kuwa dabiici ah iyo kuwa bani aadamku jeexay si ay qaaraduhu isugu gudbaan. macluumaadkan waxay ka saacideen inaad ogaato halbowlayaasha dhaqdhaqaaqa caalamka iyo halka inta badan maraakiibtu maraan. kanaalka Suez waa mid ka mid ah kuwa ugu dheer uguna muhiimsan marinbiyoodyada uguna dhaqdhaqaaqa badan. wuxuu dhex maraa waddanka Masar. dhererkiisu waa 193 kiiloomitir. wuxuuna isku xiraa badda Cas iyo badda Cad ee dhexe ama Mediterranean Sea. inta aan la qodin kanaalka Suez, maraakiibtu waxay ku soo wareegan jireen koonfurta qaaradda Afrika. waqti badan ayayna ku qaadan jirtay inay gaaraan meelaha ay u socdaan. qoditaanka kanaalka Suez qiso aad u dheer ayay leedahay. qoditaankiisu wuxuu bilowday taariikhda markay ahayd 1854. al-Khadaawi Saciid oo Masar ka talinaya ayaa shirkad Faransiis u fasaxay amarka qoditaanka. inkastoo xilli sii horeysay Napoleon Bonaparte oo ahaa hogaamiye Faransiis isku dayay qoditaanka kanaalka Suez, laakiin uu ku fashilmay. hawsha qoditaanka waxay qaadatay 10 sano waxaana ka qayb galay ku dhawaad 1 milyan shaqaale Masaari ah oo inta badan si qasab lagu geeyay. duruufo aad u xun ayaa soo wajahay shaqaalaha qoditaanka, taasoo keentay in 120,000 ay goobta qoditaanka si xun ugu dhintaan arrimo la xiriira gaajo, oon iyo cudurro. kadib 10 sano oo ah qoditaanka masaafo dhan 193 kiiloomitir ayaa la isku daray labada bad, waxaana si rasmi ah loo furay kanaalka Suez taariikhda markay ahayd 1869 kadib xaflad aad u weyn oo wadamo badan ka soo qayb galeen. kanaalka Panama wuxuu isku xiraa labada bad ee Pacific Ocean iyo Atlantic Ocean Amerikada dhexe. kanaalka Suez ayuu ka shabahay inuu yahay mid bani aadamku gacantiisa ku qoday. marxalado kala duwan ayuu soo maray kanaalka Panama dhanka qoditaanka. markii ugu horeysay waxay ahayd 1880 waxaana isku dayay Faransiiska, laakiin kaliya 3 sano kadib taariikhdaas ayuu barnaamijku fashilmay kadib dhimashadii intii badnayd shaqaalihii qoditaanka. 22,000 ayaa naftooda ku waayay arrimo la xiriira cudurka malaariyada iyo cagaarshowga, iyo waliba in qaarkood ay dugmeen kadib markii dhagaxyo aad u waaweyn ay ku soo dumeen intii lagu guda jiray qoditaanka. inta aan la qodin kanaalka Panama, maraakiibta ka baxda magaalada New York ee Mareykanka ee u socda xeebaha galbeed ee Mareykanka, gaar ahaan magaalada San Francisco, waxay ku soo wareegan jireen koonfurta Amerika. waxayna jari jireen masaafo dhan 20,000 oo kiiloomitir, laakiin kadib qoditaanka waxay u baahan yihiin hadda kaliya 8,000 oo kiiloomitir si ay u gaaraan San Francisco. waa marinbiyood dhanka dhaqaalaha aad muhiim ugu ah wadamada koonfurta iyo waqooyiga Amerika. marinbiyoodka Hormuz waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan marinbiyoodada caalamka, wuxuuna ku yaalaa mantiqada Khaliijka. wuxuuna isku xiraa biyaha badda Carbeed, Badweynta Hindiya iyo kuwa Khaliijka. waa marinka kaliya dhanka badda ay leeyihiin wadamada Ciraaq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Imaaraadka Carabta. dhinaca waqooyiga Iiraan ayaa ka saaran, dhanka koonfurtana wadamada Carbeed aan soo sheegnay. balliciisu waa 35 ilaa 50 kiiloomitir. maalin walba waxaa mara tobaneeyo maraakiib aad u waaweyn oo wado sheexnado shidaal ah. هذا هو مضيق هرمز، المنفذ البحري والملاحي الذي يمر منه أكثر من ثلث النفط العالمي، وهو بؤرة لصراع سياسي إقليمي ودولي. وهذه أبعد نقطة يمكن أن تصل إليها عدسات الصحافة. سكاي نيوز عربية حسب السلطات العمانية هي أول قناة تصل إلى هنا، بين مياه الخليج من جهة ومياه بحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى. يعتبر من أهم الممرات المائية والحيوية في العالم، وبما يمثله من أهمية استراتيجية واقتصادية للعالم كله، كونه ممر للنفط. حسب ما يقال 40% من نفط العالم يمر من خلال هذا المضيق. يقع في المضيق عدد من الجزر الصغيرة غير المأهولة، أكبرها جزر قشم ولارك وهرمز، وتشرف إيران على المضيق من جهة الشمال، بينما تشرف عليه من جهة الجنوب سلطنة عمان.
تعبر مضيق هرمز 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا بمعدل ناقلة نفط كل 6 دقائق، محملة بأكثر من 15 مليون برميل نفط يوميا. يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءا من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها. تغطية كاملة، لا يوجد ما يخلل ما يعكر صفو الأمن في هذه المنطقة. انسياب حركة السفن بشكل طبيعي، سواء كانت السفن السياحية أو السفن التجارية القادمة إلى هذه المحافظة. السفن تمر آمنة في حركة ملاحية سلسة عبر المضيق رغم التوتر الجيوسياسي الذي يدور، والمتمثل على الأخص في التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق. مضيق هرمز المكان الذي يتعايش فيه النفط مع السياسة، يعيش في صمت وعزلة جباله بعيدا وقريبا من العالم من صخب السياسة وتلوناتها، دون أن يلقي بالا على ما يبدو بالأطماع والمصالح التي تتربص به. رفيع الطالعي، سكاي نيوز عربية، مضيق هرمز، سلطنة عمان. boqolkiiba 40 shidaalka dhanka badda mare ee adduunka oo dhan wuxuu maraa marinbiyoodka Hormuz, taasoo ku tusinaysa muhiimadda kanaalkaas. wadamada khaliijka markii laga reebo Sacuudiga iyo saltanada Cumaan, wuxuu u yahay Hormuz sanbab laga neefsado iyo halbowle dhaqaale. waxa ugu xun oo ay ka baqayaan wadamadaasna waa in halkaas dagaal ka dhaco, taasoo keeni karta in Hormuz la xiro, taasoo ka dhigan in wadamadaas ay galaan xaalad aad u adag. marinbiyoodka Bab al-Mandab wuxuu isku xiraa badda Cas iyo khaliijka Cadan. inta aan la qodin kanaalka Suways muhiimad sida u weyn ma sii lahayn, sababtoo ah si toos ayuu ugu xiran yahay kanaalka Suways. wadamada Djibouti iyo Yemen ayaa labada dhinac ka kala saaran masaafo dhan 30 kiiloomitir kaliya ayaa u dhaxaysa labada daan, tan Afrika iyo midda jasiiradda Carabta ee Yemen. waa intii isu jireen qiyaastii Muqdisho iyo Afgooye. marinbiyoodka Jabal al-Tariq wuxuu dhacaa dhexda jasiirad wakaha Iberia, Spain iyo Portugal ayaa dhanka Yurub ka saaran, halka dhanka waqooyiga Afrikan ay ka saarantahay wadanka Maghrib ama Morocco. wuxuu isku xiray biyaha badda dhexe iyo kuwa Atlantic Ocean al-Muhiit al-Atlanti. waxaa loogu magac daray Tariq bin Ziyad oo ahaa hogaamiyihii ciidankii muslimiinta ee furtay Andalus xilligii Umayyiyiinta. marinbiyoodka Bosfor Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul ayuu Yurub iyo Aasiya u kala qaybiyaa. wuxuu isku xiraa badda Black Sea iyo badda Marmara. wuxuu muhiimad weyn u leeyahay wadamada dhaca badda madow sida Ukraine, Romania, Bulgaria iyo waliba Georgia. dheerarka marinka Bosfor waa 30 kiiloomitir, balliciisuna wax ka yar 1 kiiloomitir meelaha qaar. kanaalka Hayl Jarmalka sida kanaalka Suways iyo Panama ayuu bini aadamku gacantiisa ku qoday. Jarmalka ayuu ku xiraa badda Baltic ama Baltic Sea. markii hore waxaa loo yaqaanay Kaiser Wilhelm Canal. wuxuu maraa sidaan soo sheegnayba wadanka Jarmalka, wuxuuna isku xiraa labada bad ee North Sea ama badda waqooyi iyo Baltic Sea, Baxrul Baltic. wadamada ku gadaaman baddaas ayuu muhiimad aad u weyn u leeyahay oo aadna u isticmaala gaar ahaan wadamada Sweden, Finland, Estonia, Lithuania, Poland iyo weliba Jarmalka qoday. waxaa la bilaabay jeexidda kanaalkan taariikhdu markay ahayd 1887, waxaana la dhameeyay 1895. sanadkii waxaa maray kanaalkan maraakiib gaaraysa qiyaastii 43,000 oo markab. marinbiyoodka Dover dhexda Faransiiska iyo Ingiriiska wuxuu isku xiraa wadamada waqooyiga iyo badweynta Atlantic Ocean, waana marinbiyood muhiim u ah dhanka gaadiidka badda. 6 kiiloomitir ayay isu jiraan daanta Ingiriiska iyo tan Faransiiska. maraakiibta intii ay ka soo wareegi lahaayeen dhanka wadada dheer ee Scotland waxay adeegsadeen marinkan muhiimka u ah wadamada Scandinavian-ka. maalintii waxaa marto 400 oo maraakiib ganacsi aad u waaweyn.
waana waddo badeed aad u dhaqdhaqaaq badan.